marka hore waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto dagaalka culus ee ka socda buuraleyda gobolka bari ee Daacish ay kula jiraan maamulka Puntland. Waxaan odhan karaa waan rabaa inaan mahad celiyo ciidan iyo shacab iyo maamulba geesinimada ay muujiyeen iyadoo aan garanayo shakhsiyan istaraatiijiyada ay leedahay ee ISIS ay ku dooratay deegaanadaasi buuraleyda saaran badda cas iyo maanta anoo uga hambalyeynaya ciidan iyo maamul iyo shacab reer Puntland inay cadowgaas awoodda badan isu wada tegay istaraatiijiyada haysta inay kula dagaalamaan ay ka saaraan maanta oo aan leeyahay weliba dagaalkaasi umayna helin kaalmaday u baahnaayeen iyo dowlad Soomaaliyeed ee ciidnaba siday u rabeen wixii uu saaxiibada caalamka ay ka caawiyeen waa sideeda. Taas waxaan rabaa marka hore inaan bogaadiyo waxaana leeyahay wax yar baa guusha idinka dhiman waana midaan uga hambalyeynaya ciidanka iyo shacabka iyo madaxdaba reer Puntland geesinimana ay muujiyeen ku dayashana ay mudan tahay. Dhulka buuraleyda waa dhulka ugu istaraatiijisan maanta Soomaaliya halkaasi labada urur ee argagixisada labadooda ay ku loolamayeen deegaanka gacan ku hayntiisa iyo inay ka dagaalamaan iyaga dhexdooda isku haysteen waxa soo raaca waa badamadow marka taas waan marka hore waxaan rabaa inaan ka